soonku waa iska deynta ama ka tagista cuntada cabista iyo gogasha xirasho ka bilaabanaysa qorax soo baxa kuna dhamaanaysa qorax dhaca waa waajib ilaahay saaray muslimka qaangaarka ah aqligiisu joogo duruuf ka xanibaysana aysan jirin waana cibaadada kaliya ee qofka iyo Allah isla ogyihiin soonkuna wuxuu kamid yahay kuwa ugu waaweyn ee Allah oo adoomihiisa ku amaal mariyo marka laga soo tago cibaadada soonku wuxuu leeyahay caafimaad jireed oo waxtarkiisu badan yahay taas oo keentay inay soomaan dadyo xataa aan diinta islaamka haysan diimo kalena aan dartood u soomin laakiin caafimaad ahaan darteed u sooma sideedaba Allah waa naxariis badane waxna ku falimaayo inaad oonto ama gaajooto cibaado walbana waxay leedahay waxtarkeeda adduunyo intaan bal isla gaarin abaalmarinta dambe waxaan halkan maanta kugu soo gudbinayaa 10 faa'iido oo caafimaad oo soonku leeyahay kow miisaan dhimis oo qofka cayilku waa u daran yahay caafimaad ahaan iyo jir ahaanba qofka cayilkiisu saa'id yahay wuxuu u nuglaadaa inay ku dhacaan xanuunada ay ugu horeeyaan kolestaroolka iyo macaanka soonku wuxuu fududeeyaa in qofka xayrtu ay gubato oo jirkiisa faadka ku jira uu yaraado iyadoo aan waxyeelaynayn murqaha waa haddii qofku borotiin ku filan qaato soonku wuxuu horumariyaa ama cariyaa hormoonka xayrta guba ee lagu magacaabo norepinephrine halka uu hormoonka koritaanka ilaa 5 jeer uu kor u qaado mar kalena waa rugnu cibaado ah oo aad gudatay muujinaysana weynaynta aad Allah weynaysay oo aad fulisay awaamirtiisa mar kalena waa edbinta nafta oo naftaada ayaa waxaad ku edbisay inay 11 bilood cunadii ay soo cunaysay aad ka soonto waana talaabo aad ku ogaanaysid inaad naftaada ka adag tahay oo aad xakameyn karto Allah inaga aqbalo soonka inuu soomayno khayrna inuu ku dhameeyo